Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta markii saddexaad u fariisatay dacwad loo heysto wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinta Goobjoog. Xeer ilaalinta ayaa sheegay in wariyaha ay ku soo eedeeyeen in warar been abuur ah uu ku qoray bartiisa Facebook. Qareenada difaacayay wariyaha ayaa beeniyay eedda xeer ilaalinta iyaga oo maxkamadda ka codsaday in dacwadan ay go'aan ka soo saarto maadaama aan caddeyn loo hayn. saakay waxa la galay dacwadda nuxurkeeda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka wuxuu soo bandhigay eediisa annaga oo ahayn qareenadii difaacayna waxaan soo bandhignay difaacayna ku aadan eedda loo soo jeediyay wariyaha kadib maxkamadda waxaa loo gudbay gabagabadii dacwaddu waa la gabagabeeyey waxaa la sugaa oo kaliya xukunka maxkamadda ayaa la sugayaa dacwaddu waa la gabagabeeyey. Qaar ka mid ah ururada u dooda saxaafadda oo dhankooda la hadlay warbaahinta ayaa ka dhawaajiyay in kiiskan uu yahay mid lagu sumcadilayo wariyaha lana rabo in la siyaasadeeyo iyaga oo maxkamadda ka dalbaday in kiiskan la soo gabagabeeyo. dacwadii oo la soo bedelay oo bedel uu ka muuqdo oo meelaha qaarkood waxaan rajaynaynaa in la soo cadeynayo cidda mudiciga ku ah dacweynaysa wariyaha laakiin wali lafteeda ma muuqato laakiin sidaa ay tahay hadii ay aqbaleen qareenadii dacwadii la galay waxaan rajaynaynaa in go'aanka maxkamadda ka soo bixi doona maadaama hadda go'aan ay sheegeen inay qaadan doonaan inuu noqon doono mid cadaalad u dhow. qodobada lagu soo eedeynayay ama bilowgii lagu xiray markii saddexaad ayaa iyadana la soo bedelay. xeer ilaalinta waxay keeneen qodobo ku salaysan 328 iyo 269 oo xeerka ciqaabta oo ay ku qoran ama ku xusan yihiin eedeymo aan meesha ku jirin. waxaan ka dalbanaynaa maxkamadda sharafta leh sida ay u tiri go'aan baan soo gaaraynaa in go'aankeeda uu noqdo in xorriyadiisa la siiyo Cabdicasiis Axmed Gurbiye lagana laabto arrinta xayiraadda lagu saaray qoraaladiisa ujeedada dacwadan ay tahay arrin ku saabsan in Gurbiye laga hor joogsado oo kaliya qoraaladiisa. waxaan kaloo sheegaynaa adeegsiga la adeegsanayo sharciga si loo dhibaateeyo saxaafadda inaanay ahayn arrin daw ah oo bannaan in dastuurka dalkuna arrintaas uu diidan yahay. waxaan kaloo sheegaynaa oo aan arrintaas ku darayaa dheeraad ahaan in xafiiska madaxweynaha arrintan ay ka socoto oo xeer ilaalinta uu ku haayo cadaadis joogto ah oo xeer ilaalinta maalin walba lagu qasbaayo inay dacwadda bedesho oo habeen walba warqad cusub oo horle ay soo qoraan. xafiiska madaxweynaha waxaan u sheegaynaa madaxweyne dacwadan isaga bax magacaada ku bilaabatay 220 sida ku qorneed bilowgii 14 Abriil markii Gurbiye la soo eedeeyay magacaaga lagu sheegay isaga bax dacwadan xeer ilaalintana ku amar inay dacwadan joojiso magacaada ugu jirtaa waxba yaana meelo kale la xagxaganin. Maxkamadda gobolka ayaa ka dhawaajisay in ay dhawaan soo saari doonto go'aanka kama dambaysta ah ee ku aadan kiiska wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye.